su-aashan if not acceptable specify when aydan insha Allah gadaalan ka sharxi doonaa. Marka hadda waxaan u gudbi doonaa qaybta labaad oo ah bonuska ah. halkan sidoo kale waxaa noo taala dataset kale halkan ku diyaarsan. waxaa nagala rabaa age-ka oo qofku jiro, qofkii dhashay xilligan dhashay, taariikhdan dhashay, meeqa sano ayuu jiraa, sidoo kale meeqa bilood ayuu jiraa, sidoo kale markii la gaaro 1 April 2028 meeqa sano ayuu jiri doonaa haddii uu gaaro ilaa lama oga. xisaabadan marka hore age-ka xisaabi doonaa. year fraction marka isticmaali doono reference isticmaali doono hadii la yiraahdo equal aan leenahay bracketan furaynaa. qaacidadan anaha taariikhdan ayaan reference ku sameeynaa. kadib waxaan leenahay minus today oo ah qaacidada maanta ama taariikhda maanta la joogo. bracketka xiraysa waxaa marka loo qaybiyay waayo hadda intaan ku ekayno waxuu noo saarayaa maalmo ayuu noo saarayaa ama kala hormari hataa okay waayo today laga jaray taariikhda maanta soo ujeedii maalmo noo saaraya. anaga marka maalmo ma doonayno, waxaan rabnaa taariikh sax. soo marka maalmahan sanad uga dhigto waxaad u qaybidaa maalmaha sanadka oo ah 365.25. soo ujeedin qofkan wuxuu jiraa 35 sano. waxaa raaca bilooyin u raaca san bilahaas noo gudubno int qaacida leeyahay isticmaal kadibna soo xirdana. soo ujeedin okay halkan dhismarka ay ku raacanaya iska jadhi malahan. kadibna hoos u dir. soo ujeedin da'da waa soo helnay centerka gay. soo marka waxaan helnay soo ujeedin qof walba sanadka uu jiro inta sano uu jiro anagoo isticmaalina references today oo laga jiro taariikhdaas uu dhashay. sidoo kale aan u qaybinay maalmaha maadaama maalmo helayno waxaan ka dhignay sanad aan u bedelnay. sidoo kale int qaacida formula isticmaalnay si aan uga saarno jajabka soo raacayo bilaha soo raacayo. halka marka imaadno bilaha wax weyn maahan equal ayaad leedahay waayo hadda sanadkan 35 sano waayo sanadkiina waa 12 bilood. soo marka sanadkaas waxaa ku dhufanaysaa 12 bilood oo kaliya wax weyn waa 420 bilood. hoos u dir saad ogaato inta kalena dadkan kalena bilaha ay jiraan. marka su-aasha ugu dambeyd waxay tahay haddii qofkii 1 April markii la gaaro Fardowsa meeqa sano ayay jiraysaa. waxaan samayn karnaa wax kale maahan aan kala jari karnaa maalintan waa inaan f4 fix ka dhignaa. waxaan ka jaraynaa taariikhda. markaan ka jarno internet nidhaana soo ujeedin waxuu saarayaa maalmo. soo marka maalmahaasaan bedelaynaa waxaan ka dhigaynaa 365.25. soo ujeedin wuxuu soo jiri doonaa 40 sano. qaacidada int ku dar saad fraction uga saarto. soo ujeedin 40 nadiif ah soo baxay. hoos u dir ama double click si saas soo aado. soo ujeedin waa nadiif. 1 bisha 4 2028 ardaydan waxay jiri doonaan ama dadkan na soo codso shaqada naga soo codso waxay jiri doonaan xilligaas. soo marka waa ku base gareyn kartaa adigoo fiirinaya su-aashii hore oo jawaabaya goormaad qofkaan aan aqbali karnaa. su-aashan oo jawaabtan waa sii kartaa sababtoo ah waxaad ogaanaysaa taariikhda soo socota ama taariikhdaad meel ku qorto ardayga ama qofka shaqada soo codsaday mise sano ayuu xilligaa jiri karaa. waxaan filayaa inaad fahantay casharkana ka faa'iidaystay. fadlan wixii su'aalaha qaybta commentiga nagula wadaag ama wixii qalad aad ku aragtay sidoo kale qaybta commentiga nagu reeb. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.